ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka online ku soo dhawaada qodobada wararka kuwooda ugu waaweyn xalka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir iyo loolan ka dhex ooga ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Marwada madaxweynaha dalka Seenab Cabdi baaxadda iyo awoodda sirdoonka al-shabaab oo ka yaabiyay Mari Habar wasiir Goodax Barre ayaa sheegay inay haystaan awood ay saacad kasta ku joojin karaan isticmaalka baraha bulshada ra'iisul wasaare Kheyre oo ku biiray loolan u dhaxeeya beeshiisa iyo beela ka tirsan Abgaal maxay iska shabahaan Boris Johnson iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi warbixin xasaasi ah ku daawan doontaan Somaliland oo cafis u fidisay maxaabiis lagu qabtay dagaalkii Tuqarraq sargaal ka tirsan al-shabaab ilaaladiisa oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Jilib iyo Donald Trump oo taageeray hadal ka soo yeeray hogaamiyaha waqooyiga Korea intaasi waxa ay daawadayaal qodobadii aad daawateen ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan hadii aad ku cusubtahay janaalkan wararka online rukumo oo subscribe si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay aanu ku horeyna markan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdullaahi Goodax Barre ayaa cadeeyay sababaha loo joojin waayay isticmaalka baraha bulshada maadaama dhawaan markii uu imtixaankii hore fashilma uu sheegay in dhammaan baraha bulshada lagu faafiyay warar ku saabsan imtixaanka dawladda wasiirka waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada iyo laamaha amniga ay awood buuxda saareen in mar kale uusan fashil ku imaan imtixaanka hase yeeshee ay warqad u gudbiyeen maxkamadda sare taas oo ku aadan in haddii ay qatar dhanka baraha bulshada ay ka dareemaan la joojin doono isticmaalka baraha bulshada Masar Goodax Barre ayaa intaasi ku daray in ay haatan haystaan awood ay saacad kasta ee baraha bulshada ku joojin karaan isagoo tilmaamay in aysan maanta arag sabab ay ku joojiyaan waxa uu ku hanjabay wasiirka inay xiri doonaan haddii lagu arko waxa quseeyo imtixaanka dawladda baraha bulshada in ka badan 30,000 oo arday ayaa sanadkan u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo ku celis ah kadib markii dhawaan uu fashilmay imtixaanka qaadaysa wasaaradda waxbarashada laguna arkay maadooyin kamid ah baraha bulshada geesta kalena xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda Xuseen iyo loolanka ka dhex oogan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Marwada koowaad ee madaxweynaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhawaan ka qaaday xilkii gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Dr. Xuseen Dhagaweyne kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq sida lagu xusay warbixin ka soo baxday xafiiska antidhowrka guud ee Soomaaliya wararka online ayaa ogaatay in Dr. Xuseen uusan xilkiisa ku waayin musuqmaasuq balse uu jiray khilaaf culus oo bilooyinkii ugu dambeeyay kala dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre Dr. Xuseen iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo isku beel ah ayaa isku qabtay fulinta amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo ku saabsanaa arrimaha maaliyadda laakiin uu ka dhaga adeegay Xuseen sida caadiga gobolka Banaadir ayaa wuxuu lacag siiyaa odayaal siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo taageero u ah xukuumadda muddooyinkii ugu dambeeyay waxa hoos u dhacay dhaqaalaha dawladda dhexe waxa uu Kheyre gobolka u soo wareejiyay shakhsiyaad kale oo xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha lacag laga siin jiray balse uu Xuseen u sheegay inuusan awoodin lacagta dadkan la rabo in la siiyo waana sababta keentay muranka ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyihii xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyihii xilka laga qaaday ka dalbaday inuu soo gudbiyo liiska dadka lacagta gobolka Banaadir ka qaatay iyo meelaha ay ku baxdo lacagaha kale Kheyre ayaa liiskan ka dhax helay lacag dhan 400,000 oo bil walba qaadato Marwada koowaad ee dalka Seenab Cabdi Macallim oo ah haweeneydii ka dambeysay in gudoomiye laga dhigay Dr. Xuseen isla markaana ay yihiin qaraabo dhow Xasan Cali Kheyre ayaa dalbaday in lacagtan laga joojiyo ilaa amar dambe waana sababta keentay in khilaafka uu bilowdo sidoo kale muranka kadib ayaa Dr. Xuseen lagu qabsaday 170 qof uu gobolka Banaadir ka shaqaaleysay kuwaas oo ay u soo gudbiyeen Marwada koowaad ee dalka iyo xildhibaan Mustafa Dhuxulo iyo qaar uu isaga watay waxa uu u waayay jawaab aan ahayn inuu ku sameeyay amarka Marwada dalka oo booska keensatay sidaas oo kalena ay qaraabo yihiin muddo 2 jeer ayuu Kheyre madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday xilka qaadista Dr. Xuseen balse markii koowaad waxa ka joojisay Marwada koowaad ee dalka halka hadda xilka qaadistiisa lagu aadiyay iyadoo ay dalka ka maqan tahay oo ku sugan dalka Turkiga kulankii ugu dambeeyay oo yeeshaan Xuseen iyo Kheyre ayaa ku soo dhamaaday isfahan iyo muran waxayna soo dadajisay Kheyre in madaxweynaha ka dalbado in Xuseen uu meesha ka wado isla markaasna la keeno qof kale oo iyaga taabacsan hadda waxa dood ka dhax bilaabatay Marwada koowaad ee dalka Maam Seenab iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre khilaafkaas oo ku aadan arintan iyo warqad la sheegay in Xuseen laga dhigay airportka Muqdisho ma oga sida loo xalin doono arintan balse waxa muuqata in khilaaf aan sahlaleen uu ka dhax jiro Marwada koowaad ee dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maam Seenab ayaa saameyn siyaasadeed
maam Zeynab ayaa saameyn siyaasadeed oo aan yareen ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya iyo doorka hogaamineed ee dalka taas oo ka dhigaysa in gudoomiyihii xilkiisa waayay uu haysto garab adag oo aan la loodin karin dhinaca kalena sargaal ka tirsan al-shabaab ilaaladiisa ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Jilib diyaarada dagaal ayaa xalay waxay duqeymo ka fuliyeen xarumo muhiim ah oo al-shabaab ay ku leeyihiin degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe duqeyntan ayaa waxa la sheegay in lagu dilay sargaal ka tirsan al-shabaab iyo ilaaladiisa sargaalkan la dilay ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Maxamed waxaana la tilmaamay in sargaalkan uu ahaa hogaamiyaha guud ee amniga ee al-shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka maamulka Jubbaland goobaha la duqeeyay ayaa la sheegay inay ka mid yihiin suuqa degmada Jilib waxaana lagu soo waramayaa inay jiraan burbur guryo ah inkastoo aan la sheegin in weerarkaasi dad shacab ah ay wax ku noqdeen ilaa iyo hadda lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntii xalay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin degmooyinka ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe dhinaca kalena Somaliland ayaa cafis u fidisay maxaabiis lagu qabtay dagaalkii tuqarraq ee dhaxmaray Somaliland iyo Puntland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta wuxuu cafis u fidiyay tiro maxaabiis oo ka tirsanaa ciidamada Somaliland kuwaas oo ay sheegeen in lagu soo qabtay dagaalkii deegaanka tuqarraq ee gobolka Sool ku dhaxmaray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa oo warbaahinta u akhriyay afayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu sheegay in la sii daayay 14 ruux oo kamid maxaabiis lagu qabtay dagaalkii deegaanka tuqarraq Somaliland ayaa ku sheegtay sababaha loo sii daayay maxaabiistan in Somaliland ay mar walba diyaar u tahay nabadda iyo fadliga bisha Ramadaan waxaana cafiska maxaabiistan uu madaxweyne Muuse Biixi ka sheegay munaasabadii 18 May ee xuska gooni u istaaga Somaliland dadka la sii daayay waxa kamid ah Cabdinaasir Cusmaan Cali Cabdinuur Maxamed Cabdulle Maxamed Saciid Yuusuf Cali Faarax Aadan Maxamed Cabdi Caynab Cabdi Xafiid Cabdullaahi Xalane Xuseen Saciid Warsame Cabdinaasir Maxamed Nuur Maxamed Abshir Aadan Ibraahim Xasan Salaad أحمد محمد أحمد سعيد دعالي علي فهد نور علي فارح محمد عبدي باحد يأود سردون كالشواب باحد يأود سردون كالشواب أيا كيابسي ماريا هبر waxaa islaamiyiinta ee Soomaaliya ayaa wali awoodooda hoos loo dhigin iyadoo uu jiro ololaha qaramada midoobay ee 12 sano jirsaday ee ka dhanka islaamiyiinta Soomaaliya ka dagaalama kooxahan ayaa la garab sirdoon oo si sareeya u shaqeeya sida ay sheegtay wariyaha BBC ee Maria Haber ta badan marka aan imaado Soomaaliya oo aan soo gaaro Ingiriiska al-shabaab ayaa isoo waca arintan ayaa dhacda ka hor inta aanan la sheekaysan qoyskeyga waana inta aan ku sugnaa Soomaaliya ayaa sheegtay in xogta iyo wax walba ay qabanayso la socday mar aan safar ku tagay magaalo ku taalo Koonfur Galbeed ee Beedhabo ayaa la ii sheegay in xog faahfaahsan oo ku saabsan wixii aan qabtay iyo meeshii aan tagay wariyaha ayaa intaas ku dartay markii aan weydiiyay al-shabaab sida ay ku ogaadaan dhammaan waxyaabaha aan sida gaarka u qabtay ayay ku tilmaamtay dadka sida qaaska ula shaqeeya dawladda kuwaas oo ay ku sheegtay in xog walba waxaan u sheegay ayay tiri inaan naxsanahay oo ay og yihiin ujeedka safarkayga si dhowna ay ula socdaan laakiin waxay ii sheegeen inaan walwalin oo beegsigoodu uu yahay dad ayaga ka sareeya oo ka muhiimsan dhinaca kalena xog xasaasi ayaa laga helayaa ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre oo ku biiray loolan u dhexeeya beeshiisa iyo beela ka tirsan Abgaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa awoodiisa iyo kursiga uu ku fadhiyo u adeegsaday inuu fargelin toos ah ku sameeyo maamulka deegaan Garsbaale ee duleedka Muqdisho ay isku hayaan beeshiisa iyo beesha Abgaal sida wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen wararka online Kheyre ayaa 3 goor hore soo ristaa ku sameeyay in la magacaabo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaan Garsbaale oo uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir sababtaas ayaa ahayd in qofka loo magacaabay uu ka soo jeeday beesha Abgaal arintan magacaabista gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaan Garsbaale ayaa lagu hala gashay xaalad qabiil oo xoogan iyo nin jeclaysi odayaasha iyo maamulka degmada Daniile ee Muqdisho waxay deegaanka Garsbaale u yaqaanaan wax ka tirsan degmadaas halka odayaasha Abgaal gaar ahaan wacaysle iyo wacbuudan u ololanayaan Garsbaale inay noqoto degmo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir oo madax bannaan sanadii ugu dambeeyay beesha Abgaal gaar ahaan wacbuudan iyo wacaysle ayaa Garsbaale geliyay lacag xad dhaaf ah kana sameeyay dhismayaal xarumo degmo saldhigyo booliis isbitaalada ceelal iyo adeegyo kale kana dhigay deegaan ka hormarsan degmooyinka qaar ee Muqdisho gudoomiyaha Garsbaale wuxuu ka yimaadaa Abgaal gaar ahaan Daawud oo ka tirsan wacbuudan halka ku-xigeenka koowaad oo ah amniga iyo siyaasadda laga keeno Abgaal oo Caysle oo aad deegaanka ugu xoogan balse sanadkan waxaa dood geliyay Beesha Muurursade oo kursigaas ku dhigan ku dhawaad 1 sano waa sababta keentay in booskaas uu banaanaado muddo 6 bil ah
arrintan waxaa lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin xildhibaano iyo la taliyaal xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha xilka laga qaaday ee maaliyadda gobolka Banaadir iyo saraakiil kale geesta kale waxaa si gaar ah u socda gudoomiyadiisa odayaal iyo siyaasiyiin kale oo deegaanka matalo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa taageeray hadal ka soo yeeray hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celiyay taageerada uu muujiyay weerar xun oo hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu ku qaaday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ahna musharaxa madaxweyne Kim Jong Un waxa uu sheegay in John Biden uu yahay qof aqligiisu yar yahay waxaana u maleynayaa in intaasi ku raacsanahay ayuu yiri Donald Trump oo ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Tokyo dalka Japan hadalkiisa ayaa sii xoogeystay kadib markii uu Twitter-ka sabtidii ku muujiyay fikirkaas la mid ah wakaaladda wararka ee Kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii tagay weerar culus ku qaaday Biden oo ah nin aad uga soo horjeeda dalkan cidla jooga ah Trump ayaa bartilmaameed ka dhigtay Biden oo si aad ah u dhaleeceeyay xilli uu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka uu sare ugu sii kacayo codka ra'yiga ee ku aadan taageerada loo hayo xubnaha dimuqraadiga ee madaxweynaha u sharaxan kuwaas oo midkood la tartami doona Donald Trump sanadka 2020ka dhaleeceynta Trump ee sida gaarka ah ugu wajahan John Biden marka laga eego xubnaha kale ee dimuqraadiga ayaa loo arkaa astaan muujinaysa in Biden uu yahay ninka Trump uu filay inuu ka hortago ama uu sida aadka uga qayb qaato doorashada 2020ka guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii aan idiin helnay haddii aad nagu soo biirto fadlan subscribe oo la soco wararka halkan aan soo gelino waad ku maasantiin in aad la socotaan oo halkan aad ku tixnaantaan